عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليك قالي أمانة وحان إني سمينا مشاريو oo anfacayso dadka anaga hadan Soomaalinahay mishaariyada waxaan ku darsanaa caanaha inkastoo ay fiican yihiin laakiin waxa loo baahan yahay in maxay ahayd oo saan loo kariyo inta waxa ay la kubsar caleen iyo maaji iyo yaanyo iyo tuun iyo basbaas iyo basal waan isku shiidaa tanaan ku shiida intana waxa ay la geedkan ku dhaxrida maxay ahayd xawaajiga waa wixii lagu daray mishaariyada qorfa iyo xawaaji burbur iyo wax la isku dardare inta lagu shubaa si uu maxay ahayd dadka afka u galin oo maxay ahayd kana lagu xiraa inta lagu shubo marka caraftana uu ka qaadana dadkana afka u magalay intana waxa ay la hilib iyo maraq intana waxa ay la mishaariyadi inta waxaan ka dhahnaa anaga shufaan oo otis al ingiriis ku qoran marka intaana isku karina ma sha Allah tabarakallah waxay ku soo baxaysaa casriyo fiican ama afur fiican ila socda insha Allah sidaan u sameeysta marmarka casriyada aad rabtiin fiican insha Allah ilmaha iyo kulli qofka uu anfaca geedkan waa fitamiinada ka buuxaan ilmaha lafooda uu soo dhisaa dadka waaweyn sidoo kale marka ila socda insha Allah ku shubasana loogu xiraa sasa loogu xiraa digsiga lagu dhaxrida maxay ahayd waxba kuma daadanay wixii carafna maxay ahayd shurbada waa mishaariyada way ka qaadanaysaa ila socda ma saxaabay shurbadii mishaariyadii saana inoogu soo baxday waa kana waa mishaariyo nafaqo leh oo hilib leh geedkana waa kii maxay ahayd oo kana waa kii maxay ahayd baharaadka iyo xawaajiga aan ku rida meesha qashin kuma dhicin maxay ahayd nadiif waaye saan waa kana ma sha Allah tabarakallah asxaabtayda qaaliga waxaan inaga codsanaa like iyo share iyo wixii comment iyo wixii toosin waa xaqiina waa kana hilibaa ku jira ma sha Allah nafaqo way ciyaalka iyo dadka waaweyn